بسم الله الرحمن الرحيم داودyaal kulanti wanaagsan meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo kala socotaan warbaahinta caalamiga anigoo Cali Rashid Maxamed ayaa idin tabinaya barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wadanka Ukraine oo heli doona hub culus oo ku garaaci karo qaybo badan oo Ruushka kamid ah dekedaha ku yaala badda madow ee Ruushka uu leeyahay oo qatar ugu jira markaan Ukraine weeraradeeda xagee gantaalahaas uga imaanay Ukraine barnaamijkeena ayaa uga bogan doontaan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada caalamiga fiidiyoga noo share garee hadaan ugu cusubtahay YouTube-ka subscribe noo saar si dowladda Ukraine ayaa la sheegay in xilligan heli doonto hub culus oo ay ka heli doonto wadamada saaxiibka la ah si ay ugu adeegsato dagaalka ay kula jirto wadanka Ruushka warbaahinta caalamka in badan oo kamid ayaa daabacay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky kulan maalmo ka hor ay ku yeesheen xarunta looga taliyo wadanka Mareykanka ee aqalka cad loogu ballan qaaday Ukraine inay heli doonto hub culus oo Mareykanka ugu deeqi doono Mareykanka ayaa ah wadanka ugu weyn ee Ukraine ay ku tiirsan tahay marka loo eego dhanka hubka iyo dhaqaalaha oo dowladda Mareykanka ay noqotay tan ugu badan ee ku bixisa waxyaabaha Ukraine ay kaga hortagayso dalka Ruushka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa la sheegay inuu bixiyay ballanqaad la xiriira 325 milyan qalab militari oo ku kacaya in Ukraine la siin doono sidoo kale tan Ukraine ay heli doonto gantaalahan badnayn oo ah nooca Army Tactical Missile System gantaalahan ayaa la sheegay in Ukraine ay siin doonaan awood badan marka loo eego dagaalka ay kula jirto dalka Ruushka si warbaahinta caalamku ay sheegayaan gantaalaha Mareykanka u ballan qaaday wadanka Ukraine ayaa la xusay inay gaari karaan 300 kilomitir taasoo ay awood u yeelan doonto deegaano ka baxsan dhulka uu dagaalka ka socdo inay duqeyn karto gantaalahan ayaa la filayaa in Ukraine ay u adeegsato inay ku weerarto dekedaha uu badda madow ku leeyahay wadanka Ruushka iyo qaybo kamid ah gobolka Crimea ee hore Ukraine looga qabsaday gantaalka lagu magacaabo Storm Shadow oo la sheegay in Ukraine ay siiyeen Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa maalmo ka hor la tilmaamay in Ukraine ay ku weerartay dekedda Sevastopol ee ku taal biyaha badda madow Ruushkuna uu leeyahay gantaalkan hadda la tilmaamay inuu siin doono Mareykanka ayaana gantaalka awood badan gantaalada Ingiriiska iyo Faransiiska ay hore u siiyeen inkastoo dowladda Mareykanku ay si cad u cadeynin hadalka ay qorayso warbaahinta caalamka qaybo badan oo kamid ah haddana warbaahinta BBC-da oo soo xiganaysa wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal iyo warbaahinta NBC ayaa sheegtay in lamada hogaamiye dhawaan markay ku kulmeen aqalka cad uu madaxweynaha dalka Mareykanka u ballan qaaday dhigiisa Ukraine in hubkaasi dhawaan la gaarsiin doono sababka dagaalka ee wadanka Ukraine waxay rajo badan ka qabtaa in gantaalahaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ay wadankeeda ku soo gaari doonaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo ku soo dalka Canada mar warbaahinta wax ka weydiiyeen ballanqaadkaasi iyo hadalaynta soo baxday maalmihii la soo dhaafay in gantaalaha la siin doono uu ka gaabsaday Ruushku ma mooga in marka sare galbeedka yihiin cid garab taagan wadanka Ukraine hub iyo dhaqaale badan ay ku bixiyaan hase ahaatee dhankiisa waxa lagu tilmaamay inuu asaguna wadanka Kuuriyada Waqooyi uu hub ka raadsaday maalmo ka hor markii ay soo baxeen khilaaf u dhaxeeya Ukraine iyo Poland oo Poland ay ku dhawaaqday inay joojin doonto hubka ay ku taageerayso wadanka Ukraine khilaafkaas ayaa la saadaalinayaa inuu saameyn asaguna ku yeelan doono dagaalka tooska ee ka socda wadanka Ukraine gudihiisa iyadoo reer galbeedku hubka ugu badan iyo dhaqaalaha ay u soo marsiin jireen wadamada ay kamid tahay Poland sidoo kale waxa laga cabsi qabaa haddii gantaalahaas culus ee Mareykanka ay gaaraan wadanka Ukraine ay u adeegsato Ruushka dhexdiisa in Ruushka isaguna adeegsan doono hub midkaas oo kala la mid ah ama gantaalo ka culus Ruushka ayaa dhowr mar ku hanjabay inuu isticmaali doono hubkiisa farsamada ee nuclear-ka xambaara daawadayaal qodobkan kaga hadlaynay Ukraine oo gacanta ku dhigaysa hubka ay ku burburin lahayd qaybo badan Ruushka kamid ah halkaas ayaan ku soo fahmeynaa intaan qodobkan la mid ah kulmayna waxaan kaga tagnaa si ay nabadgelyo